uurka hooyo anoo ku jiro waa maamada hooyadii waxaa maray baabuur allah Jibriil allah Jibriil السلام عليكم وقيارتا قيمة قايا وناقع سيدة شرفت مانسك سونا قد وناقسا وعنيقو درقوف كان سعطان هو إلياس درقوف اوكي عاو حاني هايا ديكريو اوكي ديكريو حولي هاي وحا قبصة قسوين فربضان وآدي وحنون بضان هورتا انتان يوردعن اللي دقيست هورتا مركارا ما ديكريو ومقع عادي آد وقيمة بضان شخصية لو يرو أريقا هنا وحا مسيرها إلى بارتي شرفتي سكراميدي سآن هو لهاي مقع ليه حولي أبو مقعيدة مركا عروت مركا نشاعد حافظ وقتها ودادك الويديو حالي هذا ورهدي ويل باي بدا بقوربا تبدا مقعيه ولا بحنا مقع ديكريو تاغين مقع أنيقا ليدو ديكريو قفنا إيما بحنين ومالنتا أنيقا رشي ayaa hooyadii caloosheeda markaa ka soo baxayay ayaaba dhahayay Allah Jibriil soo sida darteed ayaa magacaygaba leegu baxshay Dikriyo waa mucjiso rabbaaniya oo dhici kartan dhicin karin soo anaga Soomaali ahaan horto inta badan mucjisadeeda noocaas weli ma la kulmin laakiin ila dhageysta horta ugu imaaday magac qise ah oo taariikh ah sida ogsoltahay Cabdi Xaafid haddaan wax yar ku dulbaro taariikhda yaraalteeda uurka hooyo anoo ku jiro waa maamada hooyadii waxaa maray baabuur oo shil baabuur ay gashay anoo markaas uurka maamada ku jiro cunuga caloosha lagu siido markaas anigu ahaa dhaawacyo uurka dhexda hooyo igu soo gaaray sida baarta feeraha kale iyo madaxa oo jug culus bay ugu soo gaartay lisma lahayn macnaheedu soo ku sheegay xaalad maadaama shil maamada ay soo gashay oo baabuur soo jiiray aniga gudaha ku dhaawacnaa waxa ku dhashay xaalad degdeg ah waa sida maqluudiin caloosha hooyadiis soo ku jiro hooyadiis intee uurkiisa lahayd ayaa baabuur jiiray baabuur dardaray sida uu taqaanid baabuur markuu dardaray ka dambo Dikriyo sida ku dhashay caloosha hooyadiis ku jira dhaawacay caloosha hooyadiis gudaheeda kula gaaray soo way umushay markii umush ka dambe maxaa dhacay bal ila dhageysta xaalad kooma si baarto cunuga markuu dhasho kale cunuga caafimaad qabo bicilihi markuu dibadii baado kala sararta laga helay laakiin aniga marka dhaleeyay bicilihi waxa ahaa qof burbursan oo uur hooyo ku soo burburay oo dhaawaca baraaka marka dhaawaca ku ka soo gaaray marka iyo madax iga soo gaaray Cabdi Xaafid oo sida waa sidoo nii sheegay wax qofka wareysanayo waa Cabdi Xaafid si fiican wareysanayo okay markaas oo aan taariikhda ku haya ama markaas goobjoogaal badan ama hooyadii macaan oo inta ayada nafteeda ka salaamay hooyo Ilaahay uu kulkiisa ku xafido oo macaan waxa dhashay aniga ku haya Allah Jibriil marka طبعا ومعجزات إلهي كمتهاي عبد الحافظ عيد حرون وانا على الرسول والجماعة وضع نبي الرسول والجماعة ما شاء الله ومقلودين سيدور دحاي معجزة او شيغايو الله جبريل إنه مركي هويدي سيدا او دشاي او منسده ay ka soo saartaba inuu hore ka dhahay يعني sida wada ogna Soomaali horta waa wada war oo warkeena inta badan meel walba gaara hadii ay arrinkan jirtay markuu la oo 30 jir uu gaaray ay soo cadaanayso intii ka horeeyay maxaa loo sheegay ama kulli dad badan way wareysteen marar badan waa nin fanaana waa nin caana la yaqaano marar soo bixilad ana sida ani aaminsanahay ahaantayda laakiin hadda mucjisooyinku ka sheekeynaa bal in si dhageysta mucjisooyinka faraka maqadna faanoole laakiin si qaasle family kala baarto waa cid baartay alxamdulillah ilaahay ahludiina marka Dikriyo halkaas maadaama adoo Ilaahay magaciisa xusaya aad dhalatay ayaa waxa dhacday in magacaas iga raacay Dikriyo isla markii wadaadada baartay isbitaalka waa taqaana Soomaaliya
arigoo xanuunsan markaa dhashay oo qaybta kooban marka la sii geliyey inta badan bulshadii markaas goobjoog ahayd oo markaas baabada la joogtay xitaa rag badan oo familkii odayaalba markaas ku jira oo yiri maaragtay culug noolaan maaye waxyaala mucjisaadka baabada iga sheekaysa waxaa ka jira markaa hadda weynaaday qofka u yimid oo adeerkiisa wuxuu leeyahay cunugaa noolaan maayo samar iimaan allah naga siiyo soo isaga noo sheegayo kadib maxaa dhacay saa noo sii joodaa taariikhdiisa ragga adeeraday iyo meesha yimid markaas nin ka mida inuu yidhi kani culug ku noqon maayo waa sakiiraya aaminay ka samar baabada hooyadii aamina la yidhaahdaa ilaahay wuxuu xugmay ninka asaga ahaa asoo nin weyn inaa maaragtay dunida ku saaciday oo abaala u galay anoo nin weyn ah marka ninkaas wuxuu islahaa hooyo wuxuu ku yiri horta meesha muhiimada koowaad waxa waaye ninkan maalintoo dhashay hadduuba hadlayay kolley social media wuu jira weligiis maanta wax cusub maaha mar hore maxaa loo maqli waayey ama loo sheegi waayey maanta maxay usoo sambaxday ama maanta markuu isaga 30 jir gaaray oo usoo sheegaya taasaa ayaa tan weyn oo waalida ah laakiin waa dhici kartaa mucjiso sax way dhici kartaa qofna ma diidana mucjiso way dhacday mucjisooyin badanaa hore u dhaceen mid hadda cusub maaha ciyaal badan oo iyagoo yar hadleen way jireen ilaa kuma darnaaday ciyaal badan oo mucjisooyin kala gogooni ku dhacday ay jirtay laakiin tan muhiimada koowaad ayaa waxay tahay 30 jir markuu noqday mucjisada ay kusoo maaxatay ka hor oo dhan wuxuu soo hadli waayay nin caan oo la yaqaan oo yahay okay yani si wadine bal si la sii socdo kani ka saqiir waa ninkan waa tagayaa kani wuxuu yiri macallin kani ka saqiir meesha maartay hadda macallin xaaladda ku dhashay iyo macallin ilmo yar oo markaas joogta ka sheekeynaya oo baawur uurku isku soo jeeray macallin asayre Soomaalida inta badan Cabdi Xaafid hadda ku daro qiyaasta la baarta la buura kuna oo baarta isla markii wax ka qiyaastana wala waa gartay hooyo ma kaaga sheekaysay baabuurku nooca uu ahaa waxaan jeclahay Cabdi Xaafid haddaanan qaldin inuu ahaa Land Rover oo Soomaalida waxay u yaqaaneen magac kale Soomaalida u yaqaaneen baabuurta yararka Land Rover-ka waa gartay military isticmaalkiisa waa gartay gaariga oo la weydiinaya waxaa waa gaariga markuu caloosha hooyadiis ku jiray dardaray gaariga caloosha hooyadiis markuu ku jiro dardaray oo madax ka jabiyey oo feeraha ka jabiyey oo weli soo sii nool haddana mucjisada baabuurka iyo mucjisada kale laba mucjiso nasiib weli farq ma qadna faanole haddii aad sidaas aad adduunka ugu soo biirtay dabcan hooyo iyo aabbo iyo waalid iyo ehel iyo qaraabo baa kusoo barbaarshay waxaa dhacday inaad ka qaxdeen magaaladii Kismaayo oo aad u qaxdeen dalka Kenya aad iyo aad Cabdi Xaafid oo inta taas galay ka dhax galay inta la Kismaayo ka soo bixin erideeda Kismaayo waxa ka mid ah waxyaalaha kale mucjisada ay qabsaday inta badan waxa weeye bulshada caawina daawad doonta ama maanta ay raahday barnaamijku ku soo gaaro waxay isla doonaan dikriyo wuxuu sheegay macallin inta badan waa iska ku dardar waa taariikh sax oo jirta ها صح وهر dhacda ku dardar inay taaba wada aaminayna sababtoo waa la soo raagto waqti dheer baa ka soo wareegay sama marka waan ku dhahaynaa yani waa ku dardar ama waa mucjiso dhici karto laakiin mucjisadan mid sax waaye ama ma aha toona ma ku dhahayna laakiin inaad yani meeshaas oo ku jiro difference ayaa ku sheegaynaa waxa dhacday Cabdi Xaafid oo Kismaayo gurigeena wuxuu lahaa ceel marka ceelkii waxa dhacday nin adeerkii ah oo markaas ceelka shubay inuu yiri adeer aro meesha maraya oo culugeena adeer kaalay wadaanta iga qabo wadaanta waa taqaana marka u yartahay waa 20 kiilo ceelka waa iga culustay aniga 20 kiilo 30 kiilo weeyay adeer iga qabo asagana markaas la baaqane si wax ka hayeen adeer iga qabo asagana marka macawustaas wuxuu fiirinay wadaanta xarigeeda markaas uu qabtay ceelkii ku dhacay Cabdi Xaafid oo halkaas khasa anoo 3 jir ah baa ceelka ku dhaxdha 3 jir wadaan ceelkeeda loo dhiibay waa too kale eedane oo yani lagu dhacayo
اوكي adeerka bal waxa sameeyay ka war doonayna hadana ay waliba ceelka markaa ku dhacay ceelku waa dhuubay darbiga soo artay waliba dhag iyo qasaare kale iyo juug kale iga soo gaartay gudaha ku dhacay Cabdixaafid Ilaahay waa ilabcay Ilaahay waa barkii isla markii maartay adiga anoo biyo cabay oo laakiin markaas ku dhow suxlimaan waa reerkii markii qayriyeen oo ninkii odayga hada qayriyay asaga ceelka isku soo dhaxlay isla asaga adeerkii tiisa sidii ana hadana maartay halkaas kaga soo badbaaday ceelkaas waa taariikhda Kismaayo markaa dib u warlaabay sheekada intaan kaliya kuma eko way aad bay u dheertahay saxaraha jiro in duufaan qaado adduunyo dhan jirto aniga inta muhiimadda ka soo qaatay nin ceel ku dhacay baawur dardaray soo saqiira alooshiis markuu san ugu soo baxay ama umlasada ay soo qabataba dikrigiisa iyo wacdigiisa iyo Allah xuskiisa waday wallahi waa arrin la yaab leh qaasad ahaan Soomaaliya wili ku cusub aniga qof Soomaali ku dhacday taariikhoyinkan oo kale wili ma la kulmin fanaankeen weyn dikriyo maanta ugu horeeyo warkaas soo sheegayo aniga ahantayda 100% kuma dhahay waxa ma jiraan laakiinse haddii jireen xataa yani horabaan noo soo gaari lahayd haddii jireen arrinkan horaba u maqli lahayn hadda sheekada dhameystirkeedu u baahantiin Cabdixaafid kasoo boqda Cabdixaafid eedo dhameystiran way aad bay u dheereed waayo ina soo wada qaatamaan rabin aad u dheereed saas darteed kistaan aniga muhiimadeeda ayaan ka soo qaatay oo kaliya halkaas ay soo dhameystiran ka heleysiin aqyaarta asxaabta way islaamaya dhamaantiin halkan videoga nagu ka in waa si dheereen ma u baahni subscribe like share comment waa xaqiina ninka odayga dikriyoone waa maqashay magaciisa inuu hooyadiis ama aabiis toonaba inuu u bixinin oo magaciisa isoo watay Soomaali way u dhimanta Soomaali qof magaciisa isagoo wata dhashay ninka magaciisa soo wato dhashay maalinta dhashay ee hooyadiis dhashay magaciisa ayuu watay saas la socda wabillahi tawfiiq